dowladda Kenya ayaa shaacisay tirada ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugnaa Ras Kamboni ee dhinaca xuduudda dalka Kenya galay. Haddaba waxaa ummadda Soomaaliyeed la yaab ku noqotay tirada Kenya ay sheegtay iyo tiradii la filayay dowladda federaalku in ay geysay deegaanka Ras Kamboni ee Jubbada Hoose. waan dul istaagi doonaa qodobkaasi si qoto dheer ayaan isku waafajinaynaa ama aan u dul istaagi doonaa. dhinaca kaleeto Kenya ayaa cunaqabatay ku soo rogtay dhowr shirkadood oo dowladda federaalku ay diyaaradahooda ciidamo ay ku keensatay deegaanka Ras Kamboni. haddaba shirkadahaasi maxaa lagu haystaa? dowladda amartay, ciidan ku qaaday, dowladda dawarkeeda waad garan kartaan oo wax diidi kara amar dowlad muddo ninkii diida dabaal baa layidhi. shirkadaha lacag baa lagu siiyey, waxaa leeyahay noo qaada dadkana markay diideenna waa kii dowlimadyada laga xanibay. arrintaasi maxaaba ka jiraba waa wararka gordhow soo dhacay, waan dul istaagi doonaa iyadana waxa ka jira. isla sidaas si lamida maamulka Kismaayo ayaa maanta laba shirkadood ku xanibay garoonka Kismaayo ee magaalada Muqdisho. laba arrimood ayay shirkadahaasi u haystaan. waa midda koobaad ee ciidamada maxaad xagga u geyseen waa lagu haystaa oo maamulka Kismaayo way ku haystaan. isla sidaas si lamida ciidamo iyo rag ka tirsan xukuumadda Axmed Madoobe oo rabay inay Ras Kamboni gaadhaan ayaa iyadana noo qaado oo Ras Kamboni noo geeya baa layidhi. shirkadii waa diideen, waxaa leeyahay Ras Kamboni markii hore dowlad federaal baa nageysay, amar baa lagu geeyay, haddana ma tegayno, waa meel lagu dagaalamay, uma dhaqaaqayna baa. labada shirkadood goordhow oo Kismaayo aan la hadlay, duulimaadyadiina waa laga xanibay, wayna xidhnaayeen oo labadii diyaaradood ee shirkadahaasi ay lahaayeen way xidhnaayeen oo garoonka ayaa lagu dhex xanibay. iyadana waa dul istaagi doonaa. waxaan naga kale eegi doonaa xogihii ugu dambeeyey magaalada Ras Kamboni, ciidankii uu geeyay Axmed Madoobe, dhaawacyada iyo sidoo kaleeto khasaaraha oo tiradii hore kasii batay ayaan iyadana dul istaagi doonaa. soo dhawaada muuqaalka like saara, aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilownay dowladda Kenya ayaa shaacisay tirada ciidamada dalkeeda soo galay ee xadka ka soo gudbay ee ciidankii dowladda federaalka Soomaaliyeed ee Ras Kamboni la geeyay. ciidanka dowladdu la filayay inay halkaasi geysay, dowladda federaalka Soomaaliya la filayay inay geysay 1200 iyo ka badan baa la filayay in dowladdu ay halkaasi geysay. waliba wararka qaar waxay sheegayeen ciidanka Ras Kamboni la geeyay ilaa iyo 3000 inayba gaadhayaan. halka ila waradyadii goordhow soo baxay oo labadii maalmood ee dagaalku hadda intuu u dhacay kadib soo baxay inay sheegayeen ciidanku inay 1200 ay halkaasi geysay. Ras Kamboni dadka deegaanka markaad waraysato war ciidanka 3000 kor bay u dhaafayaan bay lahaayeen markii la isku daro kuwii Jubbaland halka joogay taliye fanac uu watay taliyihii gudoomiyihii degmada Badhaadhe ahna taliyihii aagaasi ee ciidanka Jubbaland. ciidankii halka uu joogay iyo wixii marka la isku wada daro war dhowr kun bay gaadhayaan baa lahaa oo la filayay. dowladda Kenya marka waxay shaacisay 600 askari oo waliba si official oo ma shaacinin, waa warar laga soo xigtay saraakiisha ciidanka Kenya ee jooga xuduudda laga soo xigtay weeye oo warbaahinta dalka Kenya ay baahiyeen. waxay sheegeen 600 askari oo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed u qaybaha kala duwan ee Ras Kamboni la geeyay inay soo gaareen oo ay dawaan galiyeen. haddaba kaba soo qaad dowladdu 1200 bay geysay, iska badaa wararkan kale ee 3000 iyo waxa iska badaaba dowladdu inay geysay ka soo qaad 1200 askari, 600 inay Kenya u gudbeen ka soo qaad, 600 ee kale xagee ku sugan yihiin, xagee aadeen? waa arrimaha saacadii la soo dhaafay in badan oo bulshada Soomaaliyeed kamid ah ay si weyn isku weydiinayso. waxaa halkaasi marka ka cad in dowladdu 1200 ba aysan meesha geynin, ciidan badan ba aysan meesha geynin oo wixii la adeegsanayay warbaahinta loo sheegayana uu ahaa propaganda iyo in markaasi lagu cabsi geliyo Axmed Madoobe oo dagaal ay kula jireen. arrintaasi baa meesha ka cad. dowladdu waxay meesha geysayba 700 bay ahayd, 600 Kenya isku dhiibeen, 100 duurkay wali ku jiraan oo meelaha duurka bay waxay ku jiraan. 100 kaba soo qaad waa ciidankii daraawiishta Jubbaland ee meeshaasi loogu imaaday joogay ee kadibna dib ugu beeray ciidankii ay ka tirsanayeen ee Axmed Madoobe daacadda u ahaa. kaba soo qaad 700 baa la dhigi karaa marka, ama 800 ba ka soo qaad, meelaha bay dhanaayeen baan mareynay. marka si kastaba Kenya iyagu waxay shaaciyeen 600 oo askari inay xadkooda ay ku sugan yihiin.
dowladda federaalka waxaa la sheegay inay 3 diyaaradood oo kuwa helicopterta loo diray oo soo daadgureynaya ciidankaasi walow aan wali muuqaalku xagga dowladda aan laga baahinin oo aysan baahinin saraakiisha ciidankeed xoogga Soomaaliyeed aysan wali ka hadlin oo ciidankaasi waa la soo celiyay aysan wali laakiin xogaha hoose naga soo gaaray waxay sheegayaan in 3 diyaaradood oo kuwa helicopterta ay dowladdu dirtay oo loo diray xadka ay ciidanku ku sugan yihiin ilaa saakar ay kor haabayeen oo sawirriye ay ka qaadanayeen goobta ay joogaan iyo halka ay ku tagi karaan galabtana la bilaabay daadgureynta ayay wararku nagu soo gaarayaan way wadi doonaa wixii ka soo kordho dhinaca kale dowladda Kenya ayaa la sheegay inay xadnibtay diyaaradihii dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamada ku geysay deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose waxaa la sheegay in dhowr shirkadood oo ciidankaasi qaaday la xadnibay oo waxa weeye waliba ganaax lagu soo rogay 14 maalmood gudahood ah in ay xayiraadaas ay saarnaan doonto oo duulimaadyo aysan ka fulin doonin Nairobi ee Muqdisho aysan tagi doonin oo micnaha ganaax looga dhigahayo waxa shirkadaha lagu haystaa baa la yiri inay ciidankaasi dowladda ay daadgureeyaan oo ay Raskamboni geeyaan ma ahayn baa la yiri oo dagaal bay ka qayb qaateen micnaha dowladda Kenya markay ciidanka dowladda federaalka la daadgureeyay way arkayeen shirkadaha waa shirkado gaar loo leeyahay lacag iyo dhaqaale ay rabaan inay sameeyaan dowladda wadanka ay ka howlgalayaan haday diyaarado kala lahayn way ku qasban yihiin inay amarka dowladda ay qaataan oo ay u daadgureeyaan ma ahana wax ceeb ah oo adduunka dhan bay ka dhacdaa diyaaradaha waa diyaarado bareefada iyagu meeshay dhaqaale ka helayaan bay gelayaan ciidankan dowladda ku qasabtay laba garan karo marka sabab iyaga loo xanibo oo gaar loogu qabsado lama garan karo haddii howlo kale laga doonayo waa baab kale laakiin waxaa la dhihi karaa runaantii waa xadgudub oo diyaaradahaasi waa lagu xadgudbay baa la dhihi karaa haddii warkaasi uu xaqiiqan noqdo waa war aan weli bogga hay-adda duulista iyo hawada dalka Kenya aan lagu baahinin weeye warbaahinta ayaa la faguraysa laakiin waa war miiska saaran oo aad iyo aad looga cabsi qaba dabcan ama soo bixi kara saacadaha soo socdo warbaahinta gudaha dalka Kenya way tabinaysaa warbaahinta gudaha dalka Soomaaliya sidaas si lamid ah qaar kamid ah shaqaalaha diyaaradahaasi oo anigu weydiinay waxa la yiri xanibaadaasi wada hadal baa socda laakiin xanibaadaasi waa mid miiska saaran oo aad looga cabsi qaba bay dhaheen si kasta waynu eegi doonaa isla sidaas lamid ah maamulka Kismaayo ayaa maanta waxay xanibeen 2 diyaaradood oo kamid ah shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala gudaha Soomaaliya waxaana shirkadahaasi lagu amray oo madoobe uu ku amray in ciidamo ay u qaadaan iyo taliyaal ciidanka daraawiishta Jubbaland ka tirsan oo Axmed Madoobe daacad ah inay qaadaan iyo waliba agab kale ay u qaadaan oo ay geeyaan Raskamboni shirkadu waxay dhaheen anaga halka ma tagi karno oo Raskamboni dhibaata ka taagan oo waxa weeye meel lagu dagaalamay garoon lagu dagaalamay oo badqabkiisa aan ugu haynin oo xaalkiisa aan ogaanina dad uma qaadi karno iyo ciidan tooniyo ma batay karno kaba day karno oo khasaare inaan ku galno oo waxa weeye halis weyn aan ku galnaa ya khatar ah sidaas la mid ah meesha waa meel lagu dagaalamay ma tagi karna baa leeyahay hadii na tagi karin halkaas kama bixi kartaan baa leeyahay garoonka ku xidhan yihiin Axmed Madoobe horay buu yiri magaalada Kismaayo ana madaxweyne ka mucaarad ma hadli karo wax kale wax sheegan kara ma jiro ciidan kale oo ka hadli kara ma jiro wax kale oo wax tabi kara ma jiro waxa markay doomar kara ma jiro waxaan rabaa meesha ka fulayay buu horay u yiri tiiba horta maanta taagano wuxuu awood sheeganayaa shirkadaha diyaaradaha ee gudaha Soomaaliya 2 shirkadood ayaa halkaas lagu xadibay ilaa hadda goordhow oo aan la hadlay dad jooga magaalada Kismaayo waxay xaqiijiyeen in garoonka diyaaradaha wali ay ku xaniban yihiin labadaasi diyaaradood oo meesha ay ku jiraan way eegi doonaa wixii ka soo kordho istiidooyinka siyaasadeed ee Jubbaland iyo dowladda federaalkuna wali waa socotaa Raskamboni dhaqaaqay ka wadaan ciidankii Axmed Madoobe daacad u ahaa dadkii shacabka ah ee maalmo dhaweyd dibad baxay ayaa mid loo siibaya odayaal iyaga naftirkooda Axmed Madoobe waxba nooma hayo iyagoo Raskamboni ka dhaxadlay ayaa iyagana baadi goob loogu jira waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladana dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa anigoo santaaga ayaa inala socodsiin doona haddii Allah